magacaygu waa xasan stilla oo ku nool magaalada Toronto ee dalkani Canada. Awalan ilaah baa mahad iska leh, allihii weynaa oo waaxidka ahay oo maanta inoo suurtageliyay barnaamijkan inaan halkan idinkaga soo gudbino. Marka labaad waxaa mahad iska leh bahda CT Plus Somali, aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin. Dabcan magaalada Toronto waa caasimadda gobolkani Ontario, waa magaalo ganacsi oo aad iyo aad u ballaaran, isla markaasina ay ku nool yihiin dadyo fara badan oo ka kala yimid qaaradaha dunida. waana magaalo loogu yeero dabcan waxyaabaha afka qalaad loo yaqaano ee ah multicultural city. magaaladan waxyaabaha caan ku tahay ay ka mid tahay in dadkaasi kala duwan maaragtay ay ku nool yihiin oo dabcan luqado kala duwan ku hadla, dhaqan kala duwan leh, diimo kala duwan leh. tani markii uu dilaacay cudurkan coronavirus, xaalkeeda magaalada Toronto waa xagga ganacsiga markii la yiraahdo, xagga isu socodka markii la yiraahdo, wax walba hoos ay u dhaceen. waana magaalo weli ku jirta xayiraadaha uu keenay coronavirus, inagoo usbuucii la soo dhaafay xogaa la furfuray meelaha qaarkood, laakiin si buuxda aan loo wada furinin. welina waxaa ka jira cudurka coronavirus oo ugu yaraan maalin kasta laga helo 1,000 iyo jajab qof, inkastoo hadda la bilaabay tallaalka coronavirus, isla markaasina hadda uu meel fiican marayo ololihiisa. insha allahu ilaah waxaan ka baryaynaa in ilaahay naga dulqaado. dabcan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto waxay ka shaqeeyeen waxyaabo kala duwan. waxaan u kala qaadaynaa labo dhalinyarada dabcan ka shaqeysa ama Soomaalida ka shaqeysa dalkan Canada. Soomaali waxaa jirtay mar hore dalkan soo gashay oo shaqadoodu inta badan ay ka shaqeey jireen warshadaha, qaarkoodna ay ahaayeen taxi drivers ay ahaayeen, inkastoo intooda badan ay ka shaqeey jireen markaan uu wareystay dadkii hore mar hore yimid dalkan warshadaha ay ka shaqeey jireen. laakiin mar dambe wixii ka dambeeyay 2014 wixii ka dambeeyay yimid magaaladan oo ka soo galay dhankaasi Mareykanka, dabcan looga yimid. dhalinyaradaas u muddo xoogaa in firfircooni ka duwan firfircoonidii ay lahaayeen dadkii hore u joogay ay la yimaadeen, isla markaasina ay shaqooyin ay Soomaalida aad ugu badneen ay dhex galeen, aadna uga shaqeeyaan hadda. shaqooyinkaasoo dabcan ah waxyaabaha loo yaqaano truck driverska ama baabuurta waaweyn ee taraagiyada ay dalka gudihiisa kaga kala gooshta, qaarkood ay Mareykan aadaan, oo u badnaayeen jaaliyado kala duwan oo kamid yihiin hindidoo kale, ay aad iyo aad uga shaqeeystaan, ay caan ku ahaayeen darawalada baabuurta waaweyn. laakiin hadda dhalinyaradii dambe hadda soo gashay ayaa ku biirtay oo xoolo u gashay, haddana qayb lixaad leh ay ka yihiin baabuurtaas waaweyn maaragtay ay wadaan hadda. sidoo kale dhalinyaradu waxay ka shaqeeyaan siiba wiilashu hadda sidoo kale ay ka shaqeeyaan waxyaabaha loo yaqaano tagaasida Uberka ay ka shaqeeyaan oo ayaguna qayb lixaad ka qaataan, taasoo dadkii hore u joogay dabcan ku noqotay arrin ay ku daydaan, isla markaasina qaarkoodba ay shaqada sii laba laabeen. laakiin dumarka Soomaaliyeed dabcan dhalinyaro markii la yiraahdo ama ragga Soomaaliyeed, dumar iyo rag buu isku jiraan. shaqooyinkaas aan soo sheegno waxa u badan ragga. dumarka Soomaaliyeed sidoo kale ayaguna waxay ka shaqeeyaan basaska, waxay wadaan iskuulada, ayaa in badan waa in yaraa wada, ma aha intooda badan kuwa oo basaska wada iskuulada. aniga ka shaqsi ahaan markaan iska soo qaado Xasan, magaaladan waxaan ku noolahay 9 sano. dabcan waa magaalo meelaha qaar markaad aado aad dareemayso inaad Soomaaliya joogto kale, sida westiga magaalada Toronto. aad is leedahay Soomaaliya joogtaa, dad fara badan ay ku nool yihiin oo Soomaali meel walba aad marto Soomaali degan tahay, luuq walba aad marto aad Soomaali qof Soomaali ka hor imaanayo, maqaayadaha fara badan ay ku leeyihiin, ganacsiyo fara badan ay ku leeyihiin, weliba meelaha kafeeyada laga cabo kale ay xataa qaarkood ay leeyihiin oo ayagu fariistaan isku yimaadaan. marka meelahaas kale aad tagto dabcan waxaad dareemaysaa inaad Soomaaliya kula joogto. dabcan waana waxyaabaha is leeyahay Soomaalidu dabcan markii la fiiriyo xagga ganacsiga waa ku ammaan yihiin, meel walba ay tagaan inay ganacsi ka abuuraan. magaalada Toronto
qaybahaas aan soo sheegay waa qaybaha dareemaysa qofka yimaada ama markaasi soo ku cusub oo magaaladan markuu soo dego waa meesha kaliya ah oo tooska u abaaro oo u tago. weliba waxaa jira xaafado si gooni u degan yihiin sida xaafadda Dixon loo yaqaan oo kale, waa sare dhaadheer. inta badan 99% waxaa ku nool Soomaali. Familia markaad guryahaas aad tagto kale ama dabayaas dhaadheer aad tagto, banaanka ilmo Soomaali ciyaaraya arkaysaa, dad fara badan ama dumar Soomaaliyeed ama rag Soomaaliyeed oo banaanka fadhiya arkaysaa ku sheekaysanaya. waa maasha Allah, waa jaaliyad aad u ballaaran. dabcan taasaa keenaysa in maaragtay qofka markuu qaybahaas ka mid ah magaalada Toronto uu tago oo isleeyahay dabcan Soomaaliya joogtaa. taas ayaana sabab u ah in qofku uu isweydiiyo war xagee joogta, ma Soomaaliya mise Toronto. taas waa taas. dabcan magaalada Toronto waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan ee North America marka laga hadlayo, not only Canada, North America marka laga hadlayo waa magaalooyinka ugu qaalisan ay ka mid tahay. xagga kirada markii la yiraahdo, xagga cuntada markii, xagga maciishada markii la yiraahdo, wax walba waa expensive weeyaan. xagga kirada markaan ku bilaabo, magaalada Toronto guryaha aad iyo aad u qaali u yihiin marka laga hadlayo labada qol ama qol iyo fadhiga markii laga hadlayo kale. meesha uu ka bilaabanayo kirada ka bilaabanayso waa 1500. guryaha halka qol iyo fadhiga markii laga hadlayo 1500. waxa kale waa guryo markii 2 qol iyo 3 qol iyo 4 qol yihiin waa laba qaarkood waaba ka sii badan yihiin. markii downtownka magaalooyinka maaragtay saraha kondada loo yaqaano oo kale, sarahan waaweyn cusub hadda markaa tira qaarkood waaba $5,000 ee kiradooda bil walba ka bilaabanaysa. marka xagga kirada markii la yiraahdo aad u qaalisanta. laakiin Soomaalida degan badanaa ma wada kireystaan guryahaas qaaliga. qaarkood waxay ku nool yihiin guryaha meter housing loo yaqaano ay dawladdu leedahay ay degaan oo markaas loogu talagalay dadka dhaqaalahooda uu yar yahay inay ku noolaadaan. laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale, dadka daada yar oo kale sida dhalinyarada Soomaaliyeed waxa intooda badan koox ay iskula socdaan ay arkaysaa oo guryaha waa isla kireystaan kuwa aan heli karin ama aan available ka ahayn guryaha dawladda. marka dhankaasi kirada iyo maciishada magaalada Toronto magaalo aad u qaali ah. dabcan qofka ku nool ayaa ogaan kara. dhinaca kale gaadiidka dadweynaha inta badan 80% dadka ku nool magaalada waxay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha. sababta waxa weeyaan baabuurta qofka shakhsigu uu leeyahay oo kale dadka wata waa 20%. sababta waxa weeyaan xagga insurance-ga baabuurta ayaa qaali ah oo waxa laga yaabaa qof gaari iska normal wata inuu $300-400 bishii u bixiyo oo insurance-ga ah. dabcan taas ayaa keentay in dadku marka ay u bataan dhanka gaadiidka dadweynaha. gaadiidka dadweynaha dabcan magaalada Toronto waa maasha Allah waxyaabaha ay aad ugu horeysa ay ka mid tahay xagga gaadiidka dadweynaha, ha ahaadeen tareenada dhulka hoostiisa maraya, kuwa street car-rada wax loo yaqaano banaanka kor maraya, basaska. waa xagga gaadiidka dadweynaha maasha Allah aad iyo aad ayuu maaragtay ugu badan yahay magaalada Toronto. taas waa maaragtay xagga maadaama waxyaabaha dhaqaalaha lagu raaco bishii ama qofku kaar ayaa jira uu gadanayo ama waxa tokens waxa la yiraahdo uu gadanayo jira uu ku raacayo, taasoo marka u sahlaysa inuu kaga maarmo inuu baabuur gato. taasoo marka ay ku aadaan meelaha ay shaqooyinku aadaan oo fog ama meelaha ay danaha ka leeyihiin. laakiin inta badan 80% dadka ku nool magaalada Toronto waxay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha. magacaygu waa Xasan Stiila oo idinkaga soo gudbinayay barnaamijkan magaalada Toronto ee dalka Canada. aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.